halka iminkaanu taagannahay waa koonfurta madaxtooyada cusub ee la doonayay in Soomaaliland loo sameeyo halkani qalabka iyo agabka wadani waxay ka mid yihiin laba guri oo ka dhisna deerka madaxtooyada laga dhisaayo labadaasi guri iyo guri kale oo guryaha loo yaqaan aqal Soomaaliga oo hore uga jiray intii Soomaaliland la soo galay halkaasi ama deerka dhexdiisa ayaa saaka 4tii subaxnimo ciidan hawlgal sameynaya ay burburiyeen qalabkii gurigaasi jingadihiisii looxaantiisii iyo agabkii dhex yaalay oo dhanna waxay ka mid yihiin waxa iminka aan dhex taaganhay oo agabkan igu xeersan guryahaasi maanta ma jiraan oo xaqani ayay waran yihiin intaasi waxa iyadana ku xigta oo wehelisa in dadkii xalay toole guryahani u hoyday ee inta badan ay hoyga u hayeen seexanay maanta ay hoy la'aan yihiin dadkaasi ciidanku markay soo rarayeen qaarkoodna waxay u geysteen sida dadku ay noo sheegeen jirdil qaar kalena waxaaba loo taxaabay xabsiga bal dadkii gurigaasi ku noolaa iyo dadka kale ee u yimi ee hawlgalku maanta uu ku dhacay ayaan doonayaa inaan wax ka weydiino sida arinkani saaka uu dhacay saaka anagoo salaada subax intaan la gelin ciida nagu soo wareegay markuu nagu soo wareegay anagoo hurudno ciyalkiina naga saseen bay baabka nooga soo galeen mar alla markaan ay soo galeen waxaan war waa maxay waa la idin rarayaa diyaar garoob war maxana lagu raray maxaa jira baan ku niri kadib markaan sidaa u lahdeen baabka u furayna laba nin oo askar ay qabtay dib ay qabteen gudihiiba guriga soo galeen ciyalkii hurday marka wada kiciyeen ciyalkiina way saseen kadib isweer baana laga qabtay inteedii guriga ku jirtayba dibadana loo soo saaro meel baana la istaajiyay laba nin oo guriga joogayna labadii nin iyo inankii kale geel raacay saddexdii ninba way qabteen gaarigay ku rideen wada ogeedeen Soomaha saaka in la idin raray may wax warbixinana looma soo sheegin waxaan ku baraarugno askarta iyo baabuurta iyo ciidanka ilaa ma kuwi dendamiska ilaa ma kuwi kale wax noo kala hadhi ma jiro boolis military wax noo kala hadhi ma jiro ilaa taliyuu meesha uu taagnaa ciidanku isweer bay naga soo qabteen ka bacdi markii deerkeenta gudaha soo baadheen guryaha ku qabteen guryaha markay nagu qabteenna waanu soo dareernay xooli meesha ku xareysna way dideen ciidankeena haystaan aragnay gudihii bay soo galeen wayna baadheen carruurta baxbaxda way qabteen anigoo carruurtiisii dibadda naxnay soo baxna wayna wada qabteen waxaan ku inamadii meesha ka toosay way laayeen way xidheen iyagii baa meesha soo galay ciidanka meesha soo galay guriyii way hantiyeen cagaftii way geliyeen way jajabiyeen carruurta qaarkood dhaawac bay qabtaa qaarkood way xidheen ragii way laayeen waxa loo qaadan karan way qaateen sida ay tilmaano loo dagaalamay ciidankaas anigu ma noogeen hore warmaanu qabin imikana ma qabno madalsan loo galay alaabteedii awlaadii dadka igu wada arkasaan maati iyo xoolo wax noo kala hadhin ma jirto de marka waxba alla wax dawladda ay noo reebtay ma jirto ciidankaasina anagu war iyo waxa ilmaano ciidan dul taagan marna dable loomana kala ciidanka arkisa joogaysa u dhamaayeen amba dab laha ahaadana amba diris ahaadana xalla wixii meesha joogay way soo galeen way yimaadeen wayna laayeen dhibtan in fara badan bay haysatay maanta nagu may bilaabmin muusana inaanu madaxtooye ka dhigayno isagu doonaya ayaan u sheegaya ummadda baarlamaankii mee guurtidii meeday odayaashii dalku mee macaaridkii mee maxaafidkii mee ma waxa la isku eegaa shakhsi baa lagu eegaa ummadan ciidanka qarankuna waxba nooma reebin inta yadii gurmadka ku timid ee soo yaacday markii reerkiina wala baabinayaana hablihii waa naragalaay qaar baa iyaga kooma ku jira imka saldhigga kood buur yaala inamadu way xidxidan yihiin qof aan nabar ku yaal ma jirto anaga nabar bay igu yaala maayirka walaalkii ayaa igu dhuftay maayir ku xigeenka walaalkii bay igu dhuftay nabarka aan la talaabsan kari waayo hablahana dhibaatada loo geystay nacamti hablo bini aadan waxa lagu sameeyo maaha muuse biixin mid baan u sheegaya waxaan u sheegaya muuse dhibta iyo xumaanta uu maanta noo geystay iyo baawarka uu annaga na saaray sheekadu dawlad ma taala qaranna ma taagna isaga ayaa qaranka markiisiye annaga iyo muuse taagantay كل تاكتي كل تمرتي وحبة مريبا عندنا كمان سامحين ضد انت كشرته كل تاكتي كل تمرتي وح الله لو حنا الله هذا ما جرته شيكده لكن هو موسى يا محمد حسني هذا ويعبن أنا وانا تكيسان هذا قف كهرين هذا علاقة يدي يدك يجوا حكوس جايين بدي ورو محينا لبعتنا وين جارسيين تورتور بين جارسيين ريح بين جارسيين هقول ده ما نكرين بين جارسيين هاي ده حتى يقولوا ما نمك تشوفن كوديون مالك هلا دهب ويلكو ku jira waa kan haduu lumay wada lumi lahaa haduu lumay dahabkaasi juwankiisu uu raaci lahaa walaal Soomaha waka dahabka juwankiisa halkaas ka qaaday marka alaabta dahabku meel uma ku wada lumi lahayn laakiin waxaan ii cadeynaysaa in laga saaray dahabka meesha oo ciidankii rarayuun ka saareen meesha waliba taariikh madow maanta anaga maalin madow bay noo tahay hadaan jaarka inahay reerka intaas soo sanadood yaalay ee caruurahoodii ku taaba galeen ee dadkoodii ku gaboobay ee maxamed xamsan maanta cimri taagan yahay acagtii cilaacash la mariyay jaarkii hadaanu nahay maanta anaga waxay noo taagan tahay maalin madow waxay noo tahay maalin taariikh leh oo dawladda noo gashay يعني أنا قمت مرة دلع نودي مني مشرو
sheekana kamay dhicin maati yaryar oo caruura oo aad iyo aad u yaryar in sidaa loo galo waxaanan u malaynayaa sidii yuhuudda u geli jirtay falastiin inay tahay indhahaaguna ay aad arkayso alaabtoodii iyo maatidoodii oo ilaa maanta aan cunto cunin iyaguna fooqiyo dhaadheer ay ku jiraan oo carruurtooda ay biskut siinayaan xaq ma aha ina bixi wuxuu ka dagaalamayay maxamed siyaad barre sidaa umuu gelin dadka laakiin dad buu layn jiray waa raganimo laakiin maati yaryar intuu soo diro inuu sidaa u galo wallaahi xaq ma aha adduunkana waanu gaarsiinaynaa meel kastaba iminka sidaad odhan doontaan qoysaskan mar haddii la soo barakiciyo halkan ay joogaan wallaahi waxaan rari doontaan halkooda ha ku dhintaan dhimashada loo qaatiyey hadday degayaan iminka muddo 7 cisho ah biyo baa toona may cunin carruurtooda iskuul may tegin qaar baa jajabo dayrka ka daatay qaar baa waxaan ku markay iskuulkii ay waayeen saa jajabo nabar qabo dhalkabay qaar baa waxaan ku halkaa ku silcay biyaha iyo baatay dadkii u geynayay baa la soo flagaaday la soo eriyay halkaasay maaliya ruux geel iyo ari iyo xooliyo dadba ku silcayeen saakana dawladda saddexdii arintaas ku dhacday anagu maanu arag dawlad waxa ku dhaqantay dawlad waxa sameysay midna dadkan la xidhxidhay iyo hawlgalkan dhacayba waxaanu doonaynay inaan wax ka weydiino ciidanka saaka hawlgalka sameeyay oo aanu ku booqanay goobtani madaxtooyada laga dhigayo oo ciidan fara badan ay joogeen markii aanu soo galayna waxa naga hor yimi kolonyal badan oo baabuur oo isugu jira ciidanka booliska iyo ciidamada militariga oo iyaguna goobta joogay markii aan warka ka doonayna xayraad ayaa la nagu sameeyay oo waxa la naga qaaday qalabkii aan adeegsanaynay iyadoo annagana lana xayray balse markii dambe qalabkan waa la noo soo celiyay annagana xayraadii waa la naga qaaday wax warana kamaanan helin oo jawaab celin u noqon lahaa cabashada dadkani ka soo yeedhaya cabdiqani xasan cilmi cabdiqani dawlad telefishinka Horyaal TV magaalada Hargeysa